دكتور عبد الرحمن دعالة بيلي وزيرك وزارة مالية حكومة الصومالية ومانتا صحافة الشرجرة ugu qabtay xarunta wasaaradda ayaa waxa uu ka hadlay waxqabadka wasaaradda maaliyadda ee sanadkii hore iyo sidoo kale qorshaha wasaaradda ee sanadkan bilowga ah sanadkayna dhaafay ee 2017 waxaan oran karaa waxyaalo badan baa inoo qabsoomay wax ka badan waa qaban kari lahayd laakiin dadaal baa la muujiyay sanadkaasi waxay nahagayay oo ina hogaaminayay runtu waxay tahay waxa weeye aragtida madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaruhu ay u dhigeen oo ah mid daahfuraan iyo isku filaansho iyo isku tashi ah mid ah in anaga waxaan u taaganahay tahay in la nagu kalsoonaado يعني wax walo aad wadaba kalsoonida ayaa kowka dadku inay wax wada qabsadaan qofkaad wax la qabsanayso wax ma ku aamini kartaa baa meesha ku jirta waxa aan ka bilownay madaxweynuhu ka bilaabay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo prime ministerka ra'iisul wasaaraha asal al khayr waxa weeyaan anaga xagga yaga wala na aaminaya taas horta ya anaga noo amxuha hal muciidka taasana waa iyadoo ay tahay maamulka maaliyadeed sanadka waxa noo qabsoomay waxa kamid ah horta inaan wixii la nooga baahnaa ee geedi socodka deyn dhaafka deyn cafiska wixii la nooga baahnaa oo ah lacag inta leeg inaan idinka soo ururino waa noo keentaan oo cashuur ah inaan taa gaadhnay baa wax lagu faani karo عبد الرحمن دعالة بيلي أيام وحاول المامي إن سنة كان أي دولة الصومالية قرشين يسو إن إيادا أو عن دولة كلا وحبة ويديسن أي كفل ناطس لمر كان أي بحسو مشارات كشقالها يسيدو كلا عيدا كدولة دا إسقو إنت أسكود داري إن لب الله بي قادتان كعنشورها قدستا أنا قلت ها أكسون ما أنت وحنسور رجينا وحويين عشورين لحبايو يبلو حبايو ناو عشورتا قدستا الشرع جين خصوصا ما يستني وشاء بقول كي برشان وين واحد سوي بيسي أديرو شارك كوبي لا باتك دولار أما لا باتك دولار بقول كي برشان بعد يقول تاري هاي دولار بانو مرنيا أديرو مركا دولار كا نيك كايب سنة يا بحنا يا مال كوب كشاهد عبي سنة كايب سنة بحنا هذا هو حكار روا وحوي هنا لعتها يوروسو هب كادي يورو لأنه وصل قرننا مركا أراها وحبضنا يسود دجا وحنري وحي هدو يهي سيديد كن أو دولار وطلعتنا ويسوس عطا صومال دولار دوين مغلي ميسي صومالي شلين باي ماني دوين مركان كوضع دولار دنبولا مغلي يمجري دونا دي لهاي سيدا مالو يهي وحي سيديد كن هدان كل فنو محوها شان والقرار كرتا انتو نغون كرا waxaan doonaynaa inaan inta ku dhufano teemka wala iska wada taagdan yahay inaan ilaa hadii 8 kun aha aan ka soo qaado 800 inuu yahay 800 ayaa shan ku dhufanayna ayaga daba difference ku dhaxayso maarka inta saaba naga badan imika waxaan doonaynaa inta saaba imika naga badan 8 kun waxa aha $8 naga siyaado waxaas wax weyn la isweydiimiya 8 kun waxa soo siisay $8 naga siiyay waxaan maanta sameynaa waxa weey waxaan uga digayaa dadka warxuma tashiilka in kaarta qaba ya dalkan Soomaaliyeed ciidana uma qodna ciidana uma maqneen adiga leh warxuma tashiilka ka jooji waxaan idin sheegayaa dhaba 8 kun wax laga soo iibiyay $8 baan weydiisanahay taas xaraan tahay ninkii xaraan hayso ii sheeg aniga ya wallahi bilaay tala dalkan in joogteen inaan dad haysta xaraanta dalkan in joogto ma ahaade ya dhibaataad ku wada ay ka jooji weeyaan dadka intiisa badan waan isla garanay dadka wax soo iibsada waan isla garanay عبد الرحمن دعالة بيلي وزيرك مالية ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in sanadkan ay dawladda Soomaaliya dalka keeni doonto lacag cusub oo shilinka Soomaaliga ah si looga maarmo baahiyaha isticmaalka lacagaha dollarka horta lacag marka dalku sidan oo kala noqdo ee lacag beelo sida loo soo abaabulaya loo soo abaqaalaya ee loo soo yegleelaya wax fudud ma waxyaalo farabadan baa laga soo shaqeeyay halkii ugu dambeysay yaani markii joognaa waxaana inaga la shaqeynaysaa hay'adda lacagta ee adduunyada inaga la shaqeynaysaa
lacagta waa la isla gaadhay jajabkeeda waa la isla gaadhay noocay noqonaysa waa la isla gaadhay waxa maanta laga shaqaynaya waxa weeye lacagta printingkeeda ayaa kharash jooga 40-50 milyan oo dollar baa loo baahan yahay si mashiinada iyo lacagta printingkeeda koskeeda loo bixiyo 40 iyo 50 milyan ayaa la doonayaa in cidayna siiso ya ila wanaga mushaarooyinkeena bayna karayn cidayna siiso kuwaana IMF ka shaqaynaya hay'adda caalamka lacagta ayaga hay'adda lacagta caalamka ayaa ka shaqaynaysa markay taas soo gabagabeeyaan waan u malaynaa inay tahay dhowrka bilood ay markay nagu soo aadeen lacagta waa la babshaqayn doona hadii la yiraahdo Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim TV-ga Kalsan Muqdisho